kulanti wacan wanaagsan daawadayaal gebi ahaantiinba halkani waa aayaha channel ku soo dhawaada gacmo furan in muddo ah ayaa hawada ku kala maqneen balse dib ayaan u soo rogaal celinay channelka inagoo markaana update ka dhigi doona warbixino xiiso badan aan idii hayno haddii aad iminka ku soo biirtay fadlan subscribe noo saar ku soo dhawow channelkan haddii aad ka mid tahay asxaabtii hore inoola joogay waad ku mahadsan tahay la joogistaada gabar u dhalatay dalka Afghanistan ayaa dishay laba ka mid ah dableydii dilay waalidkeeda gabar aad u da'yar oo u dhalatay dalka Afghanistan ayaa baraha bulshada si weyn looga hadalhayay kadib markii ay dishay laba ka mid ah dableydii ka tirsanaa ururka Taliban uu dilay waalidkeed iyadoo gabadhaasina lagu tilmaamay halyeeyad ama inay tahay gabar geesi ah mas'uuliyiinta gobolka Koor ayaa sheegay gabadha yar in ay qaadatay qoriga loo yaqaano AK-47 oo ay waalidiinteedu ay lahaayeen kadibna ay dishay laba ka mid ah dableydii weerarka soo qaaday qaar kalena ay dhaawacday waxayna intaa ku dareen in dableyda ka tirsanaa ururka Taliban inay aabbaheed soo weerareen iyaga oo ku beegsanayay aabbaheed inuu taageero weyn u yahay dawladda iminka talada ka haysa dalka Afghanistan gabadhan yar oo idii muuqata oo haysata qoriga ayaa sawirkani waxa uu noqday maalmihii ugu dambeeyay mid si weyn looga hadalhayo baraha bulshada iyo warbaahinta caalamka inteeda kale waxyar kadibna tiro maleeshiya ah ayaa guriga ay gabadhaasi yar ku sugnayd oo ku yaala dawlad lagu magacaabo Girwa soo weeraray hase yeeshee waxay dableydii iska difaacay oo dadka deegaanka iyo maleeshiya dawladda taabacsan kuwaas oo iyaguna garab siiyay familkaasi la soo weeraray mas'uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa waxa ay sheegeen in gabadhan yar ay iska difaacday ragga soo weeraray in ay da'deedu ay u dhaxayso 14 ilaa 16 sano gabadhaasi yar iyo wiil iyo gabar kale oo iyaduna ka sii yar ayaa hadda loo qaaday goob ammaan ah oo lagu sugayo ammaankooda maadaama ay rag muhiim ah ay ka dishay ururka Taliban dadka isticmaala baraha bulshada ayaa taageero weyn u muujiyay gabadhaasi yar ficilka ay sameysay waxaan ku jeclahay geesinimadeeda waxa oraadani ku soo qortay wakaaladda wararka ee AFP kaas oo iyaguna ka soo xiganaya dad iyagu isticmaala baraha bulshada oo lagu magacaabo Najib Rahimi waan ognahay in waalidiintaada ay ku soo laaban doonin balse aarshashada aad sameysay waad ku nafisaysaa oo niyadda ayaa kuu qaboobaysa sida waxa ku soo qoray barta Facebook nin kale oo isna lagu magacaabo Maxamed Saalax warbaahinta maxalliga ah waxay sheegeen in gobolka Koor loo yaqaano waxay ka mid tahay deegaanada gobolka Afghanistan ku yaala ee aadka ay ka dhacaan dhibaatooyinka iyo falalka ugu badan falalka aadka ugu xun ee loo geysto lidkana ku ah dumarka ururka Taliban ayaa heshiis nabadeed la saxiixatay Mareykanka bishii February iyadoo ay ururka xubno badan oo ka tirsan ururka Taliban ay ku baaqayaan in la afgambiyo dawladda Afghanistan iyo dastuurka dalka ka jira iminka ka talinaya ugu dambeyntiina gabadhan iyo walaalaheed ayaa iminka ammaankooda aad loo sugaya iyadoona ay ka mid noqotay gabdhaha ugu farkutiriska ah ee dhacdooyinka ceenkani oo kale ka geysta in qof waalidkeed uu dilay iyaduna ay disho sidoo kalena ay ku dhiirato qori in ay qaadato rasaasna ay ku furto maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday